بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواها جانالكنا فرحية كوشين أصحاب تقاليق مركلي إي muuqaal cusub qudaar isku dardar ah qaabkan u diyaarsado qaabka aad qudaarta u keydisan kartid maasha Allah tabaarakallah yaa soo dhawaada daabasho wanaagsan waxaan rajeynayaa inaad ka heli doontaan hilibka iyo qudaarta bishii 2 mar ee soo adeeganaysa maasha Allah lacag la beel dareenaa ma jirto save your money ma fahanteen qaabka meel wax u dhigan lahayd cunno isku dheelitiran aad u cun lahayd ayaa rabo inaan kaga faa'iideeyo soo dhawaada daabasho wanaagsan marka u hore qudaar fresh ah soo qaadanaysa hadii aad rabtid inaad bishii dhanba 2 mar la soo adeegato waxyaabaha maalaya aniga lacagta ka dhameynayo yaa oo maxaan ku iraadaa hatta hal garan oo daawad u gadan laadahay waxa waaye waxyaabaha maalaya aniga maanta dhan bacda le suuqa taga iska soo adeegta le waaye waxa la rabaa waxa soo gadanaysid iyo wixii la isticmaalayo inay noqdaan wax la og yahay loo baahan yahay maasha Allah gabdho badan waxay iga soo dalbadeen qaabka oo maxaan ku iraadaa biilka ay waxna meel uga dhigan karaan waxna ay maxaan ku iraadaa u isticmaali karaan maalin walba cunno isku dheelitiran adigoo cunaayo ayaad waxna meel ka dhigan kartaa dadka oo biilka oo bisha la siiyaan ka hadlaaya marka u hore xasmeynaysa suuqa tagaysa hadda Nairobi camal suuq markitiga qudaar fresh maalinta Isniinta tagaysa qudaar badan oo fresh soo gadanaysa markaad soo gadatid waxa sameynaysa karootadii qudaartii oo dhan horta qudaarta hadii inta dhaqdada fridge kan gelinaya waqti badan ma ku yaalayso qudaarta iyadoo sideeda waxa sameynaysa waa jarjaraysa karootada camal waa dhaqaysa biyaha ka qalajinaysa yacni cagaar kan ka hadlaaya qudaarta cagaaran camal ayadoo sideeda waxa la sameeyaa waa la soo gogooyaa marka rabtid inaad karsatid umba si fiican isaga dhaqaysa kaama halaabaysa ismana bedelayso maasha Allah karootadii saas yariiska u soo jarjaray kadib waxaan soo qaatay bocorkaas yariiska ah bocor weyn iyo bocorkan waa kii aad rabto isticmaali kartaa wixii dhan bocor le waaye midka yara soo qaatay geedka oo karootada lagu fiiqo kaasoo ku fiiqaya si fudud ugu fiiqi kartaa maasha Allah hadii ay tahay channelkan markii kugu horeysay aad soo booqato waxaan ka codsanaa subscribe inaad taabatid kadibna gambaleelka taawo si muuqaal walba u soo dhigo uu kugu soo dhaco insha Allah hadii aad gambaleelka taabatid waxaad noqon doontaa daawadaha ugu horeeya dhamaantiin waxaa idinku codsanayaa inay ay garab istaagtaan oo muuqaalka ii share gareysaan share gareyntiina aad ay ugu yartahay muuqaalkan waxyaabo badan ayaa ka faa'iideysaan insha Allah intaas kadib saan ayaan u soo jarjarayaa bocorka waa sida kuugu fudud oo aad u jarjarin kartid waayo bocorku waa adag yahay soo maahan bocorkan asaaba laba nooc ah midka yariiska oo dheer iyo midka caadiga la yaqaanay oo bocorkii balbalaarna laakiin kana iyo fudud kan la iska soo qaatay qudaartan dhan waa isku darsanaysaa qudaartu waxa waa caafimaadka u fiican tahay cunnada markaad ku dhex dartidna maasha Allah qurux waa samahan suugada iyo bariiska cad iyo marka lagu dhex kariyo mar badan soo galiya anoo bariis iyo qudaarta maxaa la dhahayo isku dardarka isku karinayo maasha Allah caraf iyo dhadhan iyo qurux lagama sheekeen karo intaas kadib waxa sameynaya bocorka markaas saas warwareeg u soo jarjaray si yar oo sida karootada camal u jaray ayaan u jarjarayaa suugada ku darsan kartaa maraqa ku darsan kartaa qudaarta ayadoo saan u diyaarsan waxa laga helaa supermarketada laakiin waxa kaaga si fiican oo kaaga raqiisan ina adiga suuq inta ka soo geysto ayadoo fresh ah oo saan u diyaarsatid maasha Allah bocorkii saas yariiskan u soo jarjaro u jeedaan qaybtan kale bocorka waaweyn aan soo reebay ayadan waxaan rabaa inaan suugada markaan ku dhex kariyo ama maraqa aan shiido waaweyn ka dhigan kartaa bocorka yariisa ka dhigan kartaa ka waxa waaye zucchini badanaa gabdhaha waxay isku qaldaan zucchiniga iyo qajaarka sidiisa lagu cunaa asoo la bisleynin laakiin zucchiniga waxa waaye bocor camal waaye waa inaad bisleysid ma fahanteen isku mid ma ahan kisto xitaa adigu isku yar egin laakiin marka la isgarab dhigo isku ma eka zucchiniga waan soo dhaqay waana soo tirtiray waa soo qalajiyay macnaha biyo inay ka yeelato qudaarta lama rabo haday biyo ka yeelato wax badan kuuguma jirayso frinjeerka ama qaybta barafka gelin kartaa hadda waxaan rabaa inaan kala qaybiyo oo qaybna aan geliyo barafka qaybna waxaan rabaa qaybta iska caadiga inaan dhigo macnaha inta maalmaha aan isticmaalayo waxa isku dhex darayaa ama isku qasayaa bocorkii oo si yar u soo jarjaray zucchiniga cagaarka iyo karootadii saan markaan u jarjaro qaybtan in yaraan ka qaadanaya oo waxaan ku shubayaa caagadahan oo maxaan ku iraadaa dabool kale waxa laga helaa supermarketyada ama suuqa qaybta maacuunta maxaan ku iraadaa caagadaha oo kaliya lagu iibiyo ka heli kartaa intaas kadib laba qayb ama saddex qayb camal ka dhigaya
inta kale waxaan rabaa inaan kusoo daro cagaar sida broccoliga iyo waxyaabo kale rabo inaan kusoo daro adi ilaa 4 qayb ayaan ka buuxiyay saa ujeedaan bacaaga 4taas qayb ayaan ka dhigay dhinac ayaan u dhigay intaas kadib waxaan soo qaadanayaa geedkan af Soomaali xitaa wax lagu dhaho ma ogi laakiin broccoligu uu egyahay broccoliga cad leh u maleysaa asagan waxa waa qudaar caafimaad ku fiican ma sha Allah dadka hilibka jecleen oo jecelnay qudaar la cunaan ma sha Allah qudaartii waxaan ku dhahay ayu nooc helaysaa broccoliga sidiisa wuxuu galayaa booska oo hilibka hadii hilib jecleen ama aadan rabin qudaarta kugu filan qudaarta cagaarna la badsadaa ma sha Allah hilibkan isbuuci hal mar hilibka waa loo baahan yahay xitaa laakiin maalin walba qado quraac casho lagama dhigto isbuuci hal mar hilib fiican loo sameeyaa familka iyo naftaadaba inta kalena waxa qudaarta la badsadaa intaas kadib ama qudaarta hilibka isku darsan kartaa dhib malahan intaas kadib waxa sameynayaa ma soo dhaqinyaa afaarahan ma dhaqinba adaa biyo u dhaweysid waxa waa hadhow uu ka shiiraa frinjeerkana maxaan ku raadaay waqti badan ma ku jiraayo asoo sidiisa waxa sameynaysaa afka dhaadheer ka jaraysaa kadib waa ka soo kala gogoynaysaa yariiriisan ka dhigay dhan waa isla wada ekeysiyay intaas kadib waxa sameynayaa karootadii bocorkii iyo zukiinigii noo diyaarsanaa iyo qudaartan kaleeto mid cad iyo mid cagaaran oo broccoliga ayaa isku qasaysa si fiican wax dhan waa inay si fiican isku dhaxgalaan alaabtan caruurta xitaa yariiriiska oo 6 bilood ma sha Allah inta si fiican u dhaqda u karinaysa huuris kadibna waa u shiidaysaa cunno isku dheelitiran waa ma sha Allah tabaarak caafimaadkan u fiican intaas kadib waxaan u baahanahay digirta cagaaran oo maxaan ku raadaay dadka qaarna waxay dhahaan beans ama digirta gasaca ama digirta oo suugada lagu darsado qobso u yaqaano digirtan soo qaadano iskiila camal aad intii markaas kugu filan wixii dhaw isku dhax qasoo u jeedaan ma sha Allah qudaar qurux badan laga sheekeeni karin caafimaadkaaga u fiican yaa aan inaba caadi ahayn marka rabtid inaad karisid waa inaad biyo iyo qala isku daraysaa si fiican isaga dhaqaysaa kadib ayaa dabkaaga saaranaysaa waayo zukiini iyo karootada waa dhaqay laakiin qudaartan kale to cagaarka ah iyo macal digirta cagaaranba maba dhaqinba hora inta u dhaqan waxaan ku dhahay iga halaabi jiray ma fahamtay xitaa spinachka ama koostada qof bas u yaqaano markaas suuqa kasoo geeysta ayadoo sidaa jarjaraysaa weelka ku guranaysaa marka rabtid inaad karisid ayaad dhaqanaysaa ما شاء الله حرجينا إلى كفايدين مقالك هنقطة كي أقول لك تبدنا أنت كده وحسمينا هذا والله هن أربك سينايا قاركد وحنقلينا يا فرنجيرك قيبت برفك قيبت كليتو معلمها أنا استعمال عين قدرت محنك ولا فرنجيرك قيبت إسكا عادي قاعد كنيسة إن قيبت إسكا عادي هدي مرة معناها أسبوعي عمل يكون جرت وكاها الله بكرتها برفك على قلي اسمه بدليسو حتى اسكو مرق dhageyso macnaha dhagax ma noqonayso qaybta rabtid ayaa ka baxsan kartaa qudaarta sheekas ee ku soo dhamaatay waxa noo soo hartay yaanyada sidoo kaleeto yaanyada marka dhaqdid waa qalajinaysaa biyaha ka qalajinaysaa caagadaha hadii u baahan tahay alaabta aangada ay kamid tahay inkastoo aad u weyneen mid walba wuxuu qaadayaa 2 kiilo oo yaanyo ah yaanyada waaweynka 2 kiilo ku qaadayaa mideeda kale wuxuu ku fiican yahay qudaar ayu nooc aad ku ridid frinjeerka marka halaabayso faantay qaybta iska caadiga gelinaysaa ma sha Allah sideeda ay ahaanaysaa saana ugu soo guraaya yaanyadan sidoo kale hatta hadii aad dhaqin dhib malahan marka karsanaysid muhiimad waxa marka dabka saaraysid inaad si fiican la isaga dhaqdid laba caag waa mid kalena sidoo kale daboolkiisa dab ku siinaaya labada caagan buuxinaa inta soo hartan waxa waaye frinjeerka qaybta iska caadiga ah ayada wala meel oo qudaarta lagu guro ayaan ku guraaya maanta waxaan kaga faa'iideynaa waxay tahay in oo lacagtaada biilka waxna meel ka dhigan kartid waxna ka isticmaali kartid hadii maalul inta suuqa tagtaa dhahdid wax maala yacni aan soo gadanaya wax meel ma ku yaalayaan marka biilka soo qaadatidba hal mar suuqa tagaysaa qudaar fresh bishii 2 mar soo adeego hilibkana sidoo kaleeto bishii 2 mar soo gadanaysaa kugu filan maalul bay hilib cunaayo waa maya hilibka frinjeerka ugu jira qaarkiisa waa baraf in yar la hilib soo qaatay hilibkaana ujeedan kan waxa waa hilib geel bacdan oo sinyeer kale ayaan ku guraaya hilib hore ii yaalay kasto baraf saas darteed hilib badan ma soo qaadinba in yar baan ka soo qaatay mid walba hilib arya ii yaal oo baraf kan waxa waa hilib geel hilibka geelna saa camal bacda saa uu guranaysaa qaybta barafka ku xareynaysaa suugadii iyo maraqii inta ku darsanayso yarta Soomaa wax yar leh ku daraysaa isbuucina hal mar kiila ama inta familka aatiin ay ku xiran tahay hal mar hilib fiican ka u sameynaysaa ma sha Allah inta kalena waxa way suugada wax yar ugu darsanaysaa yaa hadaan xisaabtamin adiga yaa ku xisaabaay waaye
yaa cid kuu xisaabaysa ma jirto adi naftaada inaa xisaabtantido waxna meel dhigatido waxna waxaa la rabaa familka cunno isku dheelitirana aa siisid maasha allah. hilib digaagana sidoo kaleeto 2 qayb camal aan ka dhigayaa adi qiyaastii markaa 15 maalmood intii kugu filnaa hal mar soo adeeganaysaa. lacag macquul oo kaal arga maxaan ku dhahay biilkaaga soo haraysa ayuutadaada geli kartaa. yaa maasha allah tabaarakallah. saasa usoo diyaarsaday kan waxaa waaye chicken boneless waa hilibka oo lafa la'aanta maadaama hilib kaleeto iigu sii jiray firinjeerka ma soo badsaninba. kan waxaa waaye kiliyahana saa firinjeerka ugu keydisan kartid. waxaa ku darsanaysaa xawaajiyadii beerka waxaa ka fiican kiliyaha caadi waa keydin kartaa. kiliyihii waxaan ku daray cusbo, toon shiidan, xawaaji isku dardar ah iyo huruud waxyar iyo barbarooniga shiidan. adi xawaaji alaali xawaajiga haysta ku darsanaysaa. hilibka ama maxaan ku yiraahdaa kiliyaha markii wax yar oo cusbo lagu dadaadiyo firinjeerka qaybta iska caadiga dhiganaysaa marka halaabayo mafaante. kan hadda waxaa waaye hadda rabo inaan geliyo maalin kadib ayaa karsan kartaa maasha allah asagoo sidiis isbedelin xawaajiyada caraf kasoo bix firinjeerka hore lee ka kari waaye. haddii maalin walba suuq aad soo dhaadid hilibaan soo gadaa qudaaran soo gadaa yaa waxaa waaye lacag meel makuu taaleyso waxyaabo maalaa yacni loo baahnay inaad iska soo aruurinaysa lacagta xitaa meel ka aadi mataqaanid waa la xisaabtamaa wixii markaas macquul u baahantaa laga soo gataa wixii kalena waxaan ku dhahay iska dhuun waxa kalena waa la iska dhuun qabtaa wixii markaas macquul oo loo baahan yahay oo la muhuraan la soo gataa wixii kalena dhinac isaga dhigba. yaa maasha allah tabaarakallah waxaan rajeynaa inaad ka faa'iideen. mideeda kale mar walba waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo Instagram-kayga soo booqda alaabaha aan iibiyo dhan halkaas ayay yaalaan qiimahooda sidaa ku heli kartid. Instagram-kayga soo booqo Farxiyo Kushiin haddii aa weysidna comment igu soo qor ana link ku soo dhigo insha Allah muuqaalka share garay mahadsanid.